breaking news this hour. Baby Muhammad Imad Shamar has been safely returned to his mother. The 12-day-old baby was taken in a Belleville shopping centre on Saturday. booliska gobolka Western Cape ee Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyay in ay gacanta ku soo dhigeen cunuga 12 maalin dhalan ee usbuucii hore laga afduubtay xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Cape Town ee Belleville. booliska ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen Maxamed Imaad Shamar isagoo badqaba lagana soo qabtay xaafadda isku raranka ah ee Tafasaq degmada Majisbaleen Isniintii shalay galinkii dambe. afhayeenka booliska gobolka Western Cape Captain Frederick Van Wyk ayaa warbaahinta u sheegay dadaal dheer oo ay sameeyeen laamaha amniga kadib ay ku guuleystay inay soo badbaadiyaan wiilka dhalan 12 maalmood. haweeney 37 sano jir ah ayay boolisku u soo xireen kiiskan afduubka ah iyadoona la filayo in la horgeeyo maxkamadda Belleville maalmaha soo socda. haweeneydan afduubka geysatay ayaa hooyada dhashay Maxamed Imaad Shamar la soo xidhiirtay dhalmada ka hor waxaana ay u sheegtay inay u shaqeyso hay'ad hooyooyinka da'da yar ka caawisa ilaalinta iyo daryeelka. Maxamed Imaad Shamar wiilka 12 maalin dhalan ayaa qabsaday baraha bulshada iyo warbaahinta Koonfur Afrika kadib markii sabtidii laga afduubtay suuqa Merestad Mall ee xaafadda Belleville ee magaalada Cape Town.